qodobada wararka raadraaca aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah qarax saakay ka dhacay caasimada Soomaaliya Muqdisho urur goboleedka IGAD oo soo dhaweeyay ciidamada ahlu sunnah ee lagu daray ciidanka dawladda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in la qabtay askari baxsad ah oo muddo la baadi goobayay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala degmada Jamam ku toogtay afar ruux ay ku sheegeen inay ahaayeen jaajuus faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal qaysaare geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag u diyaar garoobaha qodobada ah oo faahfaahsan daawadayaal qarax gaari loo adeegsaday ayaa saakay waa barigii waxa uu ka dhacay caasimada Soomaaliya Muqdisho qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa ka hortagay ciidanka amniga dawladda Soomaaliya gaariga qarxay ayaa la sheegay inay saarnaayeen laba ruux iyagoona wado hore ciidanka dawladda u xireen doonayay inay si qasab ku maraan kadib lamaha amniga oo shaki ka muujiyay gaarigan ayaa isku dayay inay ka soo dejiyaan labada ruux ay saarnaa dabadeed way ka dhigaadeen ciidanka ayaa rasaas hubiyay gaariga kadibna halkaasi ayuu ku qarxay qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isbitaalka Digfeer ee degmada Hodan ma jiro waxa khasaare oo laga soo warinayo qaraxaasi markii laga tago labada ruux oo saarnaa maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in la qabtay askari baxsad ah oo muddo baadi goob xoogan loogu jiray askarigan ayaa la sheegay in dil uu geystay wiil bajaajla ahaa muddana baadi goob xoogan ugu jireen laamaha amniga askarigan ayaa la sheegay inuu ku dhuumaalaysanayay qaybo ka mid ah caasimada Soomaaliya Muqdisho mas'uul u hadlay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ninkan askariga lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo kadib markii dadka shacabka ay gacan ka geysteen in askarigan baxsadka la soo qabto dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ayaa afar ruux ku toogtay degmada Jamam ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay sheegeen inay ahaayeen jaajuus afartan ruux ayaa mid kamid ah waxay ahayd haweeney 20 jir ah waxayna al-shabaab sheegeen in haweeneydaasi ay jaajuus u ahayd dawladda Kenya halka mid kamid ah ay sheegeen inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya midka kalena ay ku eedeeyeen in kufsi uu geystay gabar 16 jir ah al-shabaab ayaa dadka degmada Jamam isugu soo bixiyay goob fagaara dabadeedna afartan ruux ayay isku goob ku toogteen faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal qasaare geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag inta la xaqiijiyay 5 ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya beeleed halkaasi ay ku dagaalameen maamulka deegaanka Ceelafweyn ayaa qudara ka muujiyay inuu kala dhaxgalo dagaalkaasi walow ciidamo ka socda maamulka Soomaaliland ee qabanqaabo xoogan ugu jiraan sidii uga hortagi lahaayeen ama u baajin lahaayeen dagaalka ka soo cusboonaaday degmada Ceelafweyn warkii aad ka daawanaysay raadraaca wararka daawadayaal waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sar channelkan